بسم الله marka ugu horeysa aad iyo aad ayay u mahadsantiin madaxweynaha dawladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaaw Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha xukuumadda ee dawladda Hirshabelle kulanka guud ee golaha xukuumadda maanta waxa looga hadlay arrimaha amniga xasilinta magaalada Beledweyne iyo arrimaha abaaraha wasiirka amniga xukuumadda dawladda Hirshabelle ayaa madaxweynaha iyo xubnaha goluhu waxa uu la wadaagay hawlaha amniga ee hay'adaha amniga u dejiyeen ka hortagga kooxaha argagixisada ah ee shabaab iyo xasilinta magaalada Beledweyne inta kadib golaha xukuumadda ayaa waxa ay madaxweynuhu la wadaageen macluumaad ay ka soo aruuriyeen abaaraha baasan ee guud ahaan ka jira deegaanada iyo degmooyinka Hirshabelle gaar ahaan abaaraha adag ee hadda ka taagan gobolka Hiiraan iyo deegaanada ku hareeraysan magaalada Beledweyne madaxweynuhu waxa uu sheegay in deegaanada qaar warbixinadu uu ku hayo ay tahay in biyo la'aan xoog leh ay ka jiraan dhawaanna biyo dhaamin loo samayn doono insha Allah deegaano badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan oo abaar xoog leh ay ka jirto gargaar degdeg ahna lala gaari doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo shirkii golaha xukuumadda ee maanta qodobadaas ayaa looga hadlay aad iyo aad ayaad u mahadsantiin